السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتم بالدعوة شهادة قيمها هي قدرينتم مدن ميل والبودافع عالم كاتشوكتان رمضان كريم دعوة وحال سوق على وقت رمضان وكلا وذا دي سومرين جني وروحي ديجان كي دلك النجس وجاره وستة وسيدين كي منيا إذا أنا حرمت الديجان كسومري ذا مجال ذا جيجا وركي جن واحد لسه عشرين دونا أنا جوا فار عبد الدبت وتبدأ وركان ديجان كي دلك يدين كهاي نوجود دور كورونا وحا كمدا وحرمت الديجان كي مجال ذا جيجا سير سراه الله وما موسي عسكم مالنتا إلى لنتا ديجان كا وركان يدين كهاي نو دلك أقولها وكيل هذا شعب كي دلك ويشي سنة كيس دحات كلن كيسي سجالي لبعتنا دي عادي جاء أي أنسحية إن دلك اللقاء قاضو مرحلة الدق دقاه ودلكو كوتشري قد بدن ينكو داون دونتان اللي تبين مورد markale daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow isla maqal wanaagsan oo wacan waxa la soo gaaray waqtiga nadaan oo kala wadadiin soo marin jirnay war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo faahfaahsan ku soo dhawaada waxa xarunta deegaanka magaalada Jigjiga si arsala oo lagu maamusay xuska maalinta ilaalinta deegaanka sida uu noogu sheegay faafayntan wariye Maxamed Deeqamaan shanta Juun ee sanad kasta waxa guud ahaanba caalamka laga xusaa maalinta ilaalinta deegaanka taasoo maanta laga xusay maalinta ilaalinta deegaanka isla mar ahaantaana dhul beeris lagu sameeyay buurta kala marnay iyadoo lagu beeray 400 geed oo laga hortagayo xaalufka dhirta dhul beeristan ayaa waxa fulinay mas'uuliyiinta wakaaladda ilaalinta deegaanka kaymaha tamartii macdanta iyo shaqaalaha wakaaladda ilaalinta deegaanka kaymaha tamartii macdanta waxaana halkudhig looga dhigay aan la dagaalano waxyeelada dhacu gaarsiiyaan deegaanka haddaba dhul beeristan kadib waxaanu wareysi la yeelanay maarayaha wakaaladda ilaalinta deegaanka kaymaha tamartii macdanta dowladda Soomaaliya Itoobiya mudane Mawlid Hayr Xasan iyo maariye ku-xigeenka wakaaladda ilaalinta deegaanka kaymaha tamartii macdanta mudane Cabsaaq Tayyib Xasan kuwaas oo si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda leedahay maalintani xuskan maanta waa xuska caalamiga ee maalinta ilaalinta deegaanka ama World Environmental Day la yiraahdo weeyaan saddex arrimood oo isbarkan baan ku xusaynaa maalmahan sidaad ka warqabteenba magaalada Jigjiga ayaan ka shaqaynaynay nadaafadeeda oo bacaha iyo wixii plastic pollution ka leeyahay muxuu ahaa qashinka bacaha dhibaatada ay deegaanka gaarsiiyaan ayaa laga aanu ka mataqaana nadiifinaynay duqa magaalada iyo waxa naga qayb galayay kulliyadda maareynta iyo adeegga shacabka sidoo kale shalay baan ku qabanay maantana xaggan buurtan aan ku qabanay marka saddex arrimood oo muhiim ah weeyaan marka koobaad buurta wad arki doontaan waanad aragteen hadda waxa weeyaan waxay noqotay nabaadkii dabiiciga ahaa baa ku soo noqday cawskii baa cirka tagay dhirtii baa baxday iyada midhihii ka daatay ayaa seed bank u noqday oo midhihii ka daatay baa dib u soo biqlay haddana dhinaca kale halkan waxaan isna ka sameynay mashruuc kale oo kan ku xidhan oo biogasku macnaha waxa weeye waa digada looda oo laga shito shidaal oo laga dhigto muxuu ahaa gargare lagu karsado wax ama shawlad waad arki doontaan hadda muxuu ahaa waxa kale oo keenaya fertilizerka beeraha lagu bacrimiyo ee nafaqada carrada u noqda oo isla kana dhalaya subax kastaba wuxuu dhalayaa muxuu ahaa hal jarikan ama 20 litir ugu yaraan oo bacriminta beeraha buu dhalaya sidoo kalena guluub ahaana waa loo shidanayaa raashinkiina waa lagu karsanayaa marka mashaariic isbarkan baan halkan ka sameynay waxaan u soo baxnay aagan kaara marra oo maaragtay aanu ka wadnay muddo hadda 2 sano iyo bar ah mashruuc la yiraahdo daryeelka noolaha kala duwan ama biodiversity-ga waxa lagu yiraahdo afka qalaad kaasoo hadda midho dhal ah waana markii labaad ee aanu buurtan doorano hadda ka hor waxa dhici jirtay inaan maaragtay magaalada dhexdeeda aan ku xusno halkan waxaan ku beeray 400 geed oo maaragtay geedaha kala duwan ee maaragtay buurtan cimiladeeda ku haboon kuwaasoon isleenahay way qabsan doonaan iyadoo kuwii sanadkii hore aanu beerayna sida hadda buurta ka muuqato ay qabsadeen oo maaragtay isbedelkan hadda weyn ee maaragtay ka muuqda buurta ay sabab u tahay dhirtii aanu ku beeray bisheedii sidoo kale wakaaladda ilaalinta deegaanka kaymaha tamartii macdanta ayaa qorsheystay in 75 biogas la sameeyo halka 12 kamid la dhameystiray laguna qaatay baraskal kuwa kalena la sameyn doono sanad 2011 foodan ugu soo haysa biogaskan ayaa wuxuu ka hortagayaa xaalufka dhirta iyadoona xuskan uu noqon doono kii 45aad heer caalam laga xuso halka dalka Itoobiya laga xusay markii 15aad
mas-uuliyiinta macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa la yeeshay kulan mas-uuliyiinta hay'adda GIZ iyada oo dulucda kulankan ay ahayd sidii loo kormeeri lahaa mashaariicaha ay wadaan macadka cilmi baarista iyo hay'adda GIZ. Cabdisaaq Ibraahim ayaa baafinta warkaasi noo eegaya. waxaa gudaha macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya soo booqday safiirka Switzerland u fadhiya dalkeena Itoobiya mudane Daniel iyo madaxa hay'adda GIZ Marwo Elisabeth oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta macadka cilmi baarista iyadoona intaasi kadib ay shir wada tashi ku yeesheen howlka shirarka ee macadka ujeedada shirkanina waxay ahayd in ay eegaan mashaariicaha ay wadaan hay'adda GIZ iyo macadka cilmi baarista sida in dhirta la soo ururiyay ee la keediyay 20 sano ka hor loo bedelo hab kombiyuutaraysan oo casriya Cabdinaasir Cabdiqaadir oo ah madaxa daaqa iyo dhiraynta ee macadka cilmi baarista ayaa madashaasi ka soo jeediyay warbixinta waxqabadka ee macadka waxyaabaha u qorshaysan iyo heegsiga dhow ee uu rajaynayo inuu gaaro macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo su'aal isweydiin kadibna ay wafdigani ku qanceen qaab shaqeedka macadka cilmi baarista intaasi kadib ayaa waxa ay soo indheeyeen madal aqooneedka keedka dhirta iyo daaqa oo ay ku xariisan yihiin boqolaal geed oo isugu jira daawooyin iyo sumba halka la keenay qalab lagu suura gelinayo geedka noociisa meesha laga helayo magacyada deegaanka looga yaqaano iyo sidoo kalena magacyada uu afka qalaad ku yahay qalabkaasi oo ah mid ku cusub macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kalena waxa ay wafdigu soo indheeyeen sanduuqa biyaha oo loogu talagalay goobaha ay biyo yaraantu ka jirto kaasoo biyaha hayn kara muddo hal sano ah halka biyaha uu qaadayana ay yihiin 20 litir ama jergaan geedahanina waxay isugu jiraan geedaha daawada geedaha sunta ah iyo sidoo kale kuwa laga sameeyo xarkaha iyo dunta waxayna wafdigani ku arkeen intii ay ku guda jireen kormeerkooda waxayna geedahan isugu jireen dacar cadeeda dacar caarida iyo waliba abaabeynta oo ah geedaha daawada ah ee deegaankeena laga helo sidoo kalena erginta dibowga iyo waliba haadeynta oo ah geedaha sunta laga sameeyo xaskulka amaba xigga iyo dhagweynta oo sidoo kale laga sameeyo xarkaha iyo dunta ayaa ka mid ahaa dhirtani ay soo indheeyaan wafdigani waana kan maaraya ku xigeenka macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Aadan oo warbixin kooban naga siiyay booqashada wafdigani ujeedada guud ee ay u yimaadeen waxay ahayd in kormeer iyo indhayna lagu sameeyo mashaariicaha ay wadaan macadka cilmi baarista ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hay'adda GIZ gaar ahaan mashaariicaha kala ah laba hawlood baa ugu waaweynaa booqashada hawsha koobaad waxay ahayd ama mashruuca koobaad wuxuu noqonayaa mid aan wada qabanay hay'adda GIZ ay naga caawisay oo ay qaybteeda lahayd kuna saabsanaa in dhirta deegaankeena oo 20 sano ka hor la ururiyay 6,000 oo noocyada kala duwana in loo bedelo qaab computerized oo casriya oo software la geliyo isla markaana ay ka faa'iideystaan dadka deegaankeena cilmi baarayaasha kala duwan iyo dadka daraasaadka kala duwan sameynaya inaanay waqti ku qaadanay goobtii tagan laakiin ay qaab software u helaan xogtii geedaha soo dhameystiran marka waa mashruuc aad u ballaaran waana guul aad u weyn oo deegaanka u soo hoyatay in dhirteena kala duwan degmooyinka kala duwan ee deegaanka ku kala filiqsan inta la ururiyo qaab casriya loo diyaariyo mashruucani faa'iidadiisu leeyahay baaxadiisana uu leeyahay marka waa mashruuc guul ku soo hoyday guul ku dhamaaday sidoo kalena Cabdinaasir Cabdiqaadir oo ah madaxa daaqa iyo dhiraynta iyo waliba Shaafi Axmed oo ah madaxa maamulka carrada iyo biyaha ee macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa geestooda waxay sheegeen labada program in iyaga naga caawiyeen aan ka wada shaqeyno waxa kamid ah kow ka ah herbarium digitization ka in dhirayntii 20 sano ka hor la soo aruuriyay in aan dib intaynan dib u xumaanin inaan u bedelno software casriya oo laga keenay Oxford University jaamacad ku taala England kuwaasoo noo tababareen National Herbarium-ka Addis Ababa macallimiin ka socota oo already qaadanay oo hadda mir dhal ilaa hadda noogu taagan oo already haddana aan ka wadno oo gacanta ku hayno waxaa kaloo kamid ah qaabta savingiga qaabka
loo beero geedaha xilliyada ay abaaruhu ay jiraan ee biyo yaraantu ay jirto program isagana la yiraahdo grow artist water box la yiraahdo kaasoo loo isticmaalo meelaha biyuhu ku yar yihiin iyo geedaha muhiimka ah si loo beero kuwaana yani already waa soo aragteen oo kuwaana way naga caawiyaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka Afdheer ayaa u qabtay kulan ay ujeedadiisu ay dardargelinta shaqaalaha ka howlgala degmada Baari ee gobolkaasi Afdheer. Abshaar Maxamuud ayaa baabaynta warkaasi noo eegaya. maamulka gobolka Afdheer ayaa kulan la yeeshay shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada degmada Baari ee ka tirsan gobolkaasi Afdheer. kulankan oo ka soo qayb galeen dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada degmada Baari ee ka tirsan gobolkaasi Afdheer kana qabsoomay nolosha shirarka ee degmadaasi Baari ujeedadiisuna ahayd dardargelinta shaqada si ay bulshada u helaan adeeg dhammaystiran qof walba oo shaqaalaana uu ugu adeego bulshada si ka go'naansho leh waxaana ugu horeyntii furitaankii kulankan ka hadlay gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Farxaan Cabdi Maad in shaqadii iyo horumarka maanta aan haysano ee heerkan soo gaaray ee biyaha leh ee caafimaadka leh ee waxbarashada leh ee wadada leh ee buundada leh ee nooc kasta leh ee shalay aan haysanin ee maanta aan haysano inaan ilaashano oo kaalinteeda aan ka ilaashano shalay wada ma jirin maanta meel barnaamijka soo marayo in maxaan ku dhahay hooyada danyarta ee maanta lacagta la amaahinayo ee shalay aan haysanin maanta la amaahinayo in hooyada iyo aabbaha shalay xoolaha aan lahayn ee maanta baabaca loo sameeyay 25 neef ariga loo gaday 5 sac loo gaday in barta ay ka socdaan dee baa loo baahan yahay in kuwa shalay indha la'aanta ahay maanta indhaha loo fiiqay argooda arkay ee maamultiimka caafimaadka dhaqaatiirta wareegaysa fadhiga inta ugu soo indhaha ugu fiiqayaan in la sii adkeeyo in nabadgelyada maamulka Soomaaliland la sii adkeeyo in shaqaalanimada iyo dawladnimada iyo xisbinimada la garab taagnaado bashar shaqo TV caalamiga ee TV degmada Baari ee ka tirsan gobolkaasi Afdheer mas-uuliyiin isugu jiray heer federaal iyo heer deegaan oo uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Jarar ayaa soo kormeeray goobaha laga fuliyay qorshaha baabaca ee dhulbeereedka iyo dhismayaasha guryaha ee maamulka magaalada Dhagaxbuur. Bashiir Cabbaas iyo baabaynta warkan. mas-uuliyiin isugu jirtay heer federaal iyo heer deegaan uu horkacayay gudoomiyaha maamulka gobolka Jarar ayaa soo kormeeray beeraha babaca ee laga hirgeliyay magaalada Dhagaxbuur ee duleedka Daacax Galiley oo ah goob ku habboon dhanka falashada beeraha iyo waliba sidoo kale sayidka dhismayaasha babaca ee laga hirgeliyay isla magaalada Dhagaxbuur halka ay marayaan haddaba xubnahani ka socday wasaaradda arrimaha federaalka ee horumarinta reer guuraaga ee dalka ayaa waxa ujeedadiisu ahayd sidii ay ku ogaan lahaayeen qorshayaasha xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya babaca oo macnaheedu yahay biyabad cilmi iyo caafimaad ee lagu dhimayo saboolnimada si ay khibrad dheer uga qaataan barnaamijkan babaca ayaa socdaalkoodu ku salaysnaa waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Jarar mudane Maxamed Xasan Suufi oo beertani babaca ee laga hirgeliyay Daacax Galiley ka warbixiyay maanta waxaan joognaa Daacax Galiley beeraha ku yaala oo isugu jira qaybo fara badan beer calaf ah iyo beer maaragtay raashin intaba tiimkan maanta aan halkan u soo raacnay la imaanay wuxuu ahaa tiim ka socdo deegaanada dalkeena oo doonaya inay khibrad wadaag u imaadaan deegaankeena tiim hordhaca oo la socday xafiiska dooxooyinka iyo waraabka tiimkan waxay indheynayeen xaaladda isbedelka horumarineed ee ka jira deegaankeena runtii wafdigan waxaan tusnay meelo fara badan waxaan tusnay babacada qaybta dhismaha deegaankayd oo aad iyo aad ula yaabeen nidaamka dhismaheeda iyo master plan-keeda waxay kaloo la soo kulmeen iyadoo dadkii waqti nasiib ay ku qaadanayaan guryihii oo arrin si fajac gelisay ahayd waxay kaloo iyadana hadda aan keenay qaybta calafka xoolaha iyo iskaashatooyinka shaqo abuurka dhalinyarada ee magaalada Dhagaxbuur aagii ay deganaayeen ayaan hadda keenay hadda waxaan ku suganahay waa Daacax Galiley beeraha aad u fara badan oo isugu jira calafkii xoolaha Suudaan garaaska iyo noocyadiisii kale runtii waxaan rajaynayaa inay macnaha khibrad badan naga baran doonaan sidoo kalena waxa isna dhankiisa ka hadlay agaasimaha guud ee barnaamijka dejinta iyo wacyigelinta bulshada ee xafiiska waraabka iyo dooxooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Farxaan Maxamed Aadan iyaga oo marka hore wallahi illa dhacsanaa horumarka deegaanka dhinacyo safar badan si shacabka loogu faa'iideeyay shaqo abuurka loo sameeyay dhalinyarada iyo dadka wadanka mataqaanaa ku nool iyada oo ay aad ula yaabeen iyo guryaheena qiimaha yar ee fudud lagu waxaynayo ee ku baxaya lacagteeda ku baxayso ay shacabka ka faa'iideysanayaan salahan qabaleeyadan soo aragnay waxa kamid ah qabale ku yaala degmada Gudi oo kale oo ay guryihii baabacada la dhisay dadkii shacabka ahaa ay iyaguna inta arkeen ay yiraahdeen tusaale kana noogu filan inta yiraahdeen ay iyaguna mataqaanaa ay guryahoodii inay dhistaan ay bilaabeen dawladdu marka ay qorshahan baabacada ay sameynayso waxay ugu tala gashay in dadka ay wax tusto
dadkii markii la tusay dadku way ka faa'iideysteen runaantii markaan fiirino dadku aad iyo aad bay ugu qanacsan yihiin deegaankeenana maanta meesha uu taagan yahay iyo meesha aan marayno iyo 10 sano ka hor meeshaan ahayn faraq weyn baa u dhaxeeya isku soo wada duubo oo qorshayaasha xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee looga faa'iideynayo xoolo dhaqato beeraleyda ee dejinta loogu sameeyo ayaa ah mid lagu dhimayo saboolnimada oo ah cadawga koowaad ee bulshada si loo gaadho isku filnaansho waara oo aan soo noqosho lahayn Bashiir Cabbaas telefishinka caalamiga ee STV magaalada Dhagaxbuur warkan idinka hayno dalka golaha wakiilada shacabka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo yeeshay sanadkii saddexaad kulankiisii 29aad ee caadiga ahaa ayaa ansixiyay in dalka laga qaado marxaladda degdega ah ee uu dalku ku jiray Ibraahim Cabdi Muuse iyo Fafaynta warkan dhawaan ayay ahayd markii uu dalku galay marxaladda degdega ah ee loo yaqaan emergency state-ka isla markaana laga howlgeliyay dhammaanba command post-yadii iyo ciddii ka howlgali lahayd nidaamkaasi marxaladda degdega ah waxaana laga joogaa muddo 3 bilood oo waqtigaasi uu dalku galay marxaladda degdega ah waxayna golaha wakiilada shacabka dalka oo yeeshay sanadkii saddexaad kulankoodii 29aad ee caadiga ahaa dood badan kadib ku ansixiyeen in dalka laga dulqaado marxaladdaasi degdega ahayd ee dhawaanta lagu soo rogay waxaana markii ay xildhibaanadii soo xaadiray gacanta u taageen ansixinta hawshaasi ka aamusay 8 xildhibaan oo kaliya halka xildhibaanadii kala dhamaantoodna gacanta u taageen in la ansixiyo arrintaasi oo dalka laga dulqaado marxaladdaasi degdega ee uu ku jiro inkastoo haddaba xildhibaanada qaarkood soo dhigeen in meelaha qaarkood u baahan yihiin inaan laga dulqaadin command post-ga haddana waxaa la isla qaatay in goobaha intooda badan hadda ay xaaladdu caadi tahay isla markaana loo baahan yahay in dalka laga dulqaado xaaladdaasi degdega ah ee uu ku jiro geesta kale waxa ay xildhibaanada baarlamanku hoosta ka xariiqeen in marxaladdan degdega ee uu dalku galay ay hoos u dhigtay howlihii dalxiiska isla markaana ka hor istaagtay socodka dhinaca maalgashiga oo aan ilaa iyo hadda wax dhaqdhaqaaqa laga samaynin goobo badan oo dalka ka mid ah sidaa darteedna loo baahan yahay in dalka laga dulqaado xaaladdaasi degdega ah haddaba ansixintan ay baarlamanku ansixiyeen in dalka laga dulqaado marxaladda degdega ahayd ee uu galay ayaa waxaa horseed u ah isbeddelka siyaasadeed ee uu maanta dalka Itoobiya ku tallaabsaday iyo weliba guulihii laga dhaxlay muddadii 60 maalmood ahayd ee ka soo wareegtay intii uu xilka ra'iisul wasaarenimo hayay Dr. Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxa inoogu dhan war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray warkayga waxaad la socodsiinay anigu waa Faarac Cabdi Dibad aniga asxaabtiga la qayb qaatay taminta warkan tan dib ugu kulmi doona xilli taminteena dambe ee wareed anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh